يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العارفين تصيل. هذا رسول الله نبراس الهدى هذا لكل العالمين الرسول. هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين الرسول. هذا الذي رد العيون بكفه لما بدت فوق الخدود تصيل. هذا الغمامة ذللته إذ مشى كانت تقيل إذا الحبيب يقيل. هذا الذي شرف الضريح بجسمه منهاجه للسالكين سبيل. يا رب إني قد مدحت محمدا فيه ثوابي للمديح جزيل. صلى عليك الله يا علم الهدى ما حن مشتاق وصار دليل. وحرني كان كله كل القلوب إلى الحبيب تميل. قلوب تودني حق النبي قاية يقول لي حنيسا صلى الله عليه وسلم. ومعي وحمعي قابي هذا أرنك شاهد ودليل مرخاتي دليل بوانو هيا أمضني إني النبي محمد شعشهاي وحكست إني وهو رئيسه. أما الدليل إذا ذكرت محمدا دليلك هذا كوش شيء النبي قال لك علي هيا مركب نبي محمد مجي عيسى سوقاده صارت وحي نقطة دموع العارفين كو إلهي يقان المذود تصيل مذي قبانيسو. هذا كان رسول الله وإلهي رسول كيسي نبراس الهدى وهنونك أردن غير كيسي إليس كيسي. هذا كان لكل العالمين الرسول مخلوق أردن نبي الله صادري أيون قنيا. هذا كان رسول الله وإلهي رسول كيسي هذا المصطفى والنبي إلهي دورتي. هذا كان لرب العالمين الرسول عالمين تربي جوج الرسول صادري أيها. هذا كان الذي كويا رد العيون بكفه. هذا كان هذا الغمامة ضرورة أيا ظللت أهريسي نبيا إذا مشى مركو لغيني ضرور أيا أهرين جرتي كانت وحي أهي تقيل تي قيل وشتي استاكتا إذا الحبيب يقيل نبي مركو هرسي قالوا وميلها جيتك وهرسنيو ضرورتنا ويسدل تاغيسي صلى الله عليه وسلم. يا رب هذا كان الذي كويان شرف ضريح قبر قباء قيمة يا شيء بجسمه جسمه سايو قبر قيمة يا شيء منهاجه دريقي سينا لسالكين كوا مرة سبيل وضاء يهي. يا ربي ربي يو إني قد مدحت محمدا الله إله مرخاتكاه إن النبي محمد أماني صلى عليك الله يا علم الهدى إلهي هكو صليو عالنكي بقليني هنونكو ما حن مشتاق قف جعلي انتو طاهيو او وصار دليل وصار أصعد دليل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaynu qadar yar amba xadiid kooban ka qaadan doonaa rasuulku sallallahu alayhi wasallam siyaabihii uu la dhaqmi jiray caruurta ama hadii nabi maca siyani kan nabigu sallallahu wasallam alayhi saw tilmaamayo Anas radiyallahu anhu waxa uu sheegay saxaabigan oo rasuulka aqoon weyn na u lahaa muddo 10 sanadoodaba ahaa adeegay rasuulka u shaqeynayay sallallahu alayhi wasallam ayaa wuxuu saxaabigan yiri kana arhamu an-nasi bis-sawaaya bis-sibyani wal-ciyaal
macna rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam kaan arhamu naas macna dadka ka ugu naxariista badan ee ugu turista badan caruurta iyo maatida kaana arhamu naas bisubyan wal iyal hadithkan waa sahih marka waxa ku tusayaa badaliil cadu yahay rasuulku sallallahu alayhi wasallam cid kasta bini aadamka kamid ah inuu uga naxariis badnaa caruurta ku dadaali jiray inuu la kaftamo ma dhaafi jirin hadduu ku soo baxo uu salaami jiray wuxuu fari jiray cibaadaadkooda wuxuu u sheegi jiray waxa ka xaraam ah xataa waxa dhici jirtay ilmaha yar markuu dhasho saana suurinayo kana yu'ta bisibyani fayubarriku alayhim wa yuhannikuhum wa yad'u lahum ilmaha yar markuu dhasho inta rasuulka Allah keena salawaatullaahi wa salaamu alayhi inuu sameyn jiray tahniik waxa weeyaan inta yaro timiro oo jilicsan amba xabada timirta dhexdeeda laga soo saaro ilmaha loogu dhajiyo dhan xanaga rasuulku isaga uu sameyn jiray salawaatullaahi wa salaamu alayhi waana u ducayn jiray marka qaar kood waxa dhici jirtay ilmaha yar walmeero marka dhashay iyo wixii lamid ah inuu dhabta rasuulka isagoo ku haya uu ku kaajaba rasuulka sallallahu alayhi wasallam taana rasuulku uma arki jirin wax dhib ah kamana caroon jirin waalidka ilmahana macnaanan jirin uu tarbiyo barbaarin jiray wuxuu sheegi jiray wuxuu wanaagsan aakhiradooda iyo adduunkoodaba marka qaar kood waxa dhici jirtay meelaha markuu ku soo maro caruurta inuu salaami jiray ma dhaafi jirin rasuulku sallallahu alayhi wasallam kana yamuru bisibyani fayusallimu alayhim kana yamuru bisibyani fayusallimu alayhim caruurta markuu soo maro iyagoo meel ku urursan amba gaargaar u jooga rasuulku uu salaami jiray salawaatullaahi wa salaamu alayhi hatta waxa dhici jirtay cuntada uu cunayo inay la cunaan oo wax dhibaba aanu arki jirin oo dadka qaar ba ku soo caruurta inay wax la cunto amba qaar ba caruurta iska fogeeya rasuulku la cuni jiray waxaan u sheegi jiray sida ugu wanaagsan ay cuntada u cuni lahaayeen iyo waxay sameyn lahaayeen rasuulku sallallahu alayhi wasallam mar ilmahi wax la cunayay Umar ibn Abi Salama cuntada waxa rasuulku yiri sallallahu alayhi wasallam udnu ya bunayya soo dhawow inankaygiyo soo dhawow fasamillah cuntadana bisinka u qabo macna qul bismillah waxa tiraahdaa bismillah وبرا رسولك صلى الله عليه وسلم وكل بيمينك كعنت هذا مدينة كعن تربيه الصينية لو انتظر عناية بسك وقبته إنه مديك تكعنه أداب تصدحات رسولك صلى الله عليه وسلم وكل مما يليك انتظرنا كعن لنا عاديك سوحك لنا كحية كعن ومثلا انتظر مركز سحني كترت أي وحي لمده وإن المهلا برا إن أنا لنا أول ببريرك انتظر كقاعدا haday carruurta wada cunaysa iyo hadudada wax la cunaya iyo haduu waalidkii wax la cunaya marka waa in loo sheego inuu cuntada bisinka u qabto midigtana wax ka cuno aan bidixda waxba ku cunin sidoo kale inuu cuntada dhinaca xigta uu ka cuno adab iyo raxma oo turid uu rasuulku u turay salawaatullaahi wa salaamu alayhi iyo wax barid intaba uu isugu daray حتى marka qaar waxa dhici jirtay rasuulku sallallahu alayhi wasallam carruurta uu la kaftami jirayba kana yumazihu bisbiyaan السبيان معنا ولا كفتمي جرين وكفر حين جرين رسولك صلى الله عليه وسلم وسألنا سورين أيوه وحا صحابي كان الشاقي النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا تذكر قفك أخلاق ذا ونكسب وحا كان أحسن الناس خلقا معنا أخلاقهان يدقنهان قفك دقن يا أخلاق ذا وفي عن بوحا وكان لي أخ يقال له أبو عمير وحتى رأينا يرون وراء النهي ولو رنتري أبو عمير أنا كويديسة أبو عمير هذا وحوها المير حتى رجع حديث دوري قاركود أم بحديث دوري وحيت الماميان إنه آد يرى وقاركود حليهن أحسبه فضيمة وحنو ملاينا ياون مددو الناس كبا لقى قوليه ولقى داي مركا أبو عمير وسكي عياري ترى شمبريار مركاس الرسول كورين ترى صلى الله عليه وسلم مركو يمادو يا أبا عمير ما فعل نغيره أبا عمير محوس ميي شمبركيرا ما فعل نغيره أنا أقول لك افتما يا رسول صلى الله عليه وسلم وما ركتي وكقص لنا يا الميرا وكفر حياة ولا شيء كسنة مركا عرض هذا عنفي يا أضيق تسطو أم بقى الخلف سنان
waxay dhaxaysaa in ilmahani uu ka fogaado akhlaaq wanaagsanna uu yeelan waayo oo adiga dadka liita diin ahaan iyo akhlaaq ahaanba uu gacan galo marka caruurtana waxa had iyo jeer la barbaariyaa oo mujtamaca bulshada uu ku nool yahay baa barbaarisa waqtiyadii hore waxaan arki jiray iyadoo ilmaha yar haddii aad aragto isagoo gaari dabada haysta ama isagoo anshaxumo kale ku kacaya dadka magaalada jooga ama bulshadu iyaga ilmaha waalidooda aha iyaga ka reebi jiray xumaanta iyo wixii lamid ah laakiin marka waxaad arkaysaa ilmihii amba 100 caruur aad arkaysaa gaari dabada haysta qof kaliya ag maraya lagama yaabo inuu yiraahdo gaarigan ka daga waxyaalaha idinka soo gaaraysa dhib idinka soo gaaraysa aad bay wadag tahay marka barakallahu fiikum inagoo rasuulkeena ku dayanina salawaatullaahi wasalaamu calayh oo layna faray in aynu la nimaadno wanaaga iyo khayrka laynana amray in rasuulka raacno salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo amar ay tahay waa inaynu caruurta ula dhaqanno sidoo rasuulku ula dhaqmi jiray sallallahu calayhi wasallam soo kale dumarka adduunyada maanta waxa laga hadlaa waxa la yiraahdo dumar iyo xuquuqdooda islaamku dumarka xuquuqdooda ma dayaco mana lumiyo islaamku sidoo uu karaameeyay dumarka iyo xaq ay leeyihiin iyo qadarinta uu siiyay diin siisay ma jirto hatta haddii la eego tii kristaanka iyo haddii la eego mushrikiinta carbeedba islaamku wuxuu soo baxay iyadoo gaalada qaarkoodna ay qofka dumar nijaas u arkaan qaarkoodna iyagoo noolba ay nolosha ku aasi jireen macna waxaas oo dhan ayuu islaamku ka badbaadiyay ana markan imika ay leeyihiin bini aadamku waa inuu xorriyad helo macna xorriyadu ma aha mid furan xorriyadu waa in xad yeelato macna ma aha dumarka xuquuq ay leeyihiin ba islaamka kaga maqan abadan diinta islaamku waa diin allah soo dejiyay subhanahu wa ta'ala allahna subhanahu wa ta'ala cidna ma dulmiyo ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا حديث قدسي الله وحلي سبحانه وتعالى ظلمي وحن كحرمي نفتيدا إذا كنا هيست ظلمينا مركا إسلام كلا ما يابو إن واحد ظلمي كوا هوينك إنه كتشرو رسولكنا صلوات الله والسلام عليه سوى نكسن أيدو مركا أولى دخم التري الله باب القرآن كينو غفرين وعاشروهن بالمعروف معنا واحد أولى دقة تاسيدا وجوا نكسن culimadu markay fasirayeen qaybta aayadan kamidka ah waxay leeyihiin kula hadal wanaagsan iyo kula dhaqma ficil wanaagsan iyo qaab wanaagsan ba hatta haweeneydu soo jeceshahay ninkeeda inuu isu qurxiso oo ay noqoto qof nadiif oo wanaagsan yahay maaragtay qaabkeedu sidoo kale ninkeeduna inuu u noqdo oo Allah baa yiri subhanahu wa ta'ala walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf macna dumarku waxay leeyihiin waxa kulleeydiin wax la mid ah oo wanaaga macruuf ah hadii jiraale waa in xuduudda sharciga lagu jira oo aan laga bixin rag iyo dumar labadaba rasuulku sallallahu alayhi wasallam habdhaqankiisu kula dhaqmi jiray haweenkiisu aad buu u fiicnaaye hatta marka qaarkood uu la tartami jiray uu la baratamay Aisha kale radiyallahu anha say warinayso sabaqani rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam fa sabaqtuhu macna rasuulka ila baratamay ana uu ka farxinaya ma ogtahay ودي قف إنه لشيء وداعان ويه مركز أن كده يريبه لا ده ولا هو كي يرايد هيل بعلوسه هيل كده أدونا مركز مو صارين مر الضمبة أيان هذا الرسول كله بريتهم بيلا مركز وذلك قبل أحمل اللحم أنت أنا هيل كي يلام بيهيد وأنا بريتنا يعني كده يري هذا نمر ضمبة ثم سابقته هذا نوال بريتهم مركز ضمبة أن عسلادي فسبقني رسول كاي غديري هذا نمر لباتك فقال هذه بتلك تي هوري اوتور اقول يا قول سما markii hore ka dheereeyay waad iga dheereysay imkana hada iga dheereeyay xadiiska saxiix weey rasuulku sallallahu alayhi wasallam عليه dumarka markuu soo baxay salaam jiray kana yamuru بنساء فسلم عليهن والسلام jiray dumarka in la salaama qad sharciya xadiiska saxiix kama fi jaamic الصحيح rasuulku sallallahu alayhi wasallam عليه markii qaar kood neef ariya markii gurigiisa lagu qalo hilbaa la jarjaro amba uu gooyo qayb hadiyad ahaan ayaa wuxuu ugu diri jiray saaxiibadihi Khadiija wuxuu sayaa haweenadiisii ugu horeysay bay ahayd waxa ay caruurta rasuulka sallallahu alayhi wasallam haweenadii wada dhashay sida u dhayihiin Ibrahim mooyaane dhammaan Khadiija u dhashay intii Khadiija qabayna lama guursanba Khadiija dhimatay ayuu guursaday rasuulku sallallahu alayhi wasallam Sauda dabadna Aisha saasoo kale
marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam marka neefka gurigiisa lagu qalo ayaa wuxuu u diri jiray saaxiibadihii Khadiija qayb ka mid ah hilibka isagoo marka oofinaya wanaagii ka dhaxayn jiray dumarka ay Khadiija haweenaysi ayuu tixgelinayaa saaxiibadihii ay lahayn jirtay xadiiska Bukhari ayaa soo wariyay الصحيح حتى markay wax ku soo kordhaan rasuulka ee dhibaato ay jirto waxba uu weydiin jiray haweenkiisa kama tala goosan jirin macnaheedu dumarku yahay talin maaha ra'yiga rasuulku weydiin jiray salawaatu Allahi wasalaamu alayhi waa loo ogol yahay wixii sharcigu siiyay inta xuduudda sharciga ku jira in la ogolaado marka tusaalahan waxaan soo qaadanaynaa markii uu soo degayay waxyigu rasuulku baqay salawaatu Allahi wasalaamu alayhi waa kii uu tagay Khadiija zamiluni idada markuu u waramayna waa tii u sheegtay Allah subhanahu wa ta'ala inaan rasuulka dibayn doonin oo aan hoojin doonin ra'yiga xubuu ka siinayaa marka waxba ku yimaadey ila qof noloshii la qaybsanayso ag taagan tusaale kale hadaynu soo qaadano waqtiga rasuulku uu galay heshiiskii Xudaybiya garanaysaa markii heshiiskii la saxeexay la kala qortay nimankii mushrikiinta ahaa saxaabadu wuxuu faray inay iska xalaaloobaan oo cumradii maaragtay deeto qaar baa la diiday xogaa oo heshiisku ma qodobadiisu Allahumma illa de cilibtii dambe wanaagsanaaday bilowgii hore waxaad arkaysay inuu maaragtay uu ku adkaa dadka inta maaragtay marka musalama markuu galay rasuulku u sheegay arintan ku dhacday waa tii ku tiri cidna hal hadlin adugu bax gowrac hadigan aad wado timahaagana iska xiir dabada dadku rays maaragtay rasuulku uu baxay salawaatu Allahi wasalaamu alayhi isaga geel wada gowracay wuxuu yaadhay ninkii timaha ka xiir iska dhamma saxaabadina markii bay kaga daydeen musalama u soo jeedisay rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka rasuulku ma fogeyneen tacaamulka dumarka uu tuli jir siiba dumarku markaanay rag lahayn haweeneydu markaanay nin kala lahayn aad buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam ugu naxariisan jiray una samafali jiray oo haweeneydu markaan lahayn waxa dhici karta in laga dhintay waxa dhici karta in la furay waxa dhici karta inaanay guursanba intaba way keeni kartaa armalnimadu ma ogtahay marka rasuulku sallallahu alayhi wasallam aad buu ugu tuli jiray aadna ugu naxariisan jiray uu dhageysan jiray waxay ka cabanayaan uu dhageysan jiray كان لا يتكبر على الأرملة حديث بقى وحليه فكان لا يألف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة حتى رسولك إلهي وحن نوقبه إنه راعه ويحويديا رسولك كما كبر جل صلوات الله والسلام عليه ما نديدي تشرين وحنا مديدي تشرين طيب حتى الدوميه مدينة شوق تشري انت رسولك عنت قبصدان صلوات الله والسلام عليه لتا ما ركتي ان كانت امه من اماء لاهل المدينه لتاخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق حيث شاءت معنا وراعتي رسولك صلوات الله والسلام عليه وحي دونت ايما اي دونيسو اي رسولك وفلين حالديده دي كسابسن خيرك رسولك صلى الله عليه وسلم الصاعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله معنا قف كانوا أديجيا يعاونيا يساعديا هوله هذا الصعدة هويني ده نرجع لهين منك لهين هي مسكينك وحلم ذي هي كالمجاهد في سبيل الله قف هاي طريق كل من يا وكل هذايا أو القائم الليل الصائم النهار أم بوحلم ذي مذهبك ولن تاجي صلاة الليل maalintiina sooman maxana rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu tirtirseeyaa in la caawiyo haweenkan aan hayn cid iyaga arintoodii maamusho oo rag ah amba ninkii baan haysan muaamalada uu rasuulku la muaamaloon jiray kufaarta rasuulku sallallahu alayhi wasallam waxa uu nimankan ula dhaqmi jiray inuu islaamka ugu yeero marka iyagu dagaalka la hor yimaadaan amba ilaahay sharciga diintiisa hortaagaan amba ay dagaalamaan ay u jihaadku iimanayeen لكن مركا أهريس رسولك صلوات الله والسلام عليه وحوي تري إلهي دين تيسا قابل فربضان إيها فربضان الرسول هو استعماله صلوات الله والسلام عليه في دعوتهم سي إسلامك أصوى قلان وعربك أفهان
rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayh uu ugu yeedhay fariimana uu u diri jiray quraanna uu qori jiray uu caddayn jiray islaamka ayuu jeclaysiin jiray diintan wuxuu ugu caddayn jiray islaamku wanaagga uu leeyahay iyo maxaasinta uu leeyahay ayuu caddayn jiray sidoo kale waxay arki jireen rasuulka ilaahay dulqaadkiisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh waxa kale rasuulku tusi jiray uu caddayn jiray quraankani sidoo uu waafaqsan yahay in badan oo kutubtoodii kamid ah qabla taxriifiha macna inta la bedelin taxriif ku sameeyeen oo kutub lagu cayaaray oo cidii doonta waxay ku doontaan ku dartay wixii ay doonaana ay ka reebaan rasuulku wuxuu ka aqbali jiray hadiyada xataa ka aqbalay hadiyada muqawas buu ka aqbalay oo qaar fadal badan buu ka aqbalay waa ka aqbali jiray rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam waxaan u cadeyn jiray khayrkana uu cadeyn jiray oo kama gaabin jirin laakiin maanta way yartahay in muslimiinta inay dhici karto in badan oo inaga naga midi inay tagaan oo qofka gaalka ama xafiis la joogo ama dalha kula noolaado ama meel kale ha joogo inuu islaamka u bandhigo oo islaamka u cadeeyo sabab u faafiyo waa inuu shaqo tagtay iyo in maartay iska joogta inaas umbeen kala noqon mood waana muhiim qofka muslimka inuu diintiisa xambaaro oo u gaarsiiyo kuwan aan rumaysnayn oo rasuulku salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markuu dirayay cali ibn abi talib khaybar wuxuu rasuulku faray cali inuu marka hore ugu yeedho islaamnimada inuu ugu yeedho inay islaamaan oo yeedhmada islaamnimada loogu yeedhay wax fududna aanay ahayn rasuulku wuxuu sallallahu alayhi wasallam lian yahdiya Allahu bika rajulan wahida lian yahdiya Allahu bika rajulan macna Allah subhanahu wa ta'ala inuu qof kaliya kugu hanuuniyo adigu aad sabab ugu noqoto islaamnimada ku soo galo ayaa khayrun laka min humri na'am kaaga wanaagsan oo kaaga khayr badan geel casas way carabtu dad geel dhaqday haayeen geeluna markuu geel casas yahay oo ka qiimo badan yahay geela noociisa iyo iskala buuxiisa kale marka qofka muslimka hadii tiraawo daaci noqda nimankan gaalada ma adduunyada maanta waadiga ogtay adduunyada waxay noqotay waxay yiraahdaan qurfa gurigan oo kale wax la mid iska noqotay marka laga hadlayo wasaa'il islaamkan waxyaabahan isgaarsiintan iyo waxan jir oo dhanba oo darafka ugu sheegay maanta waxa ka dhaca laxadaat amba ilbirqsiyo ayuu inaga inagu soo gaaray marka dadka muslimiinta ahayd waa in hadii tiraadan ku dadaalaan oo ay islaamka ugu yeedhaan hadkii fariinta Facebook ugu faraya kii email ugu diraya kii la joogo u sheegaya waa in dadkan horta bal islaamkii loo cadeeyo oo loo bayaamiyo marka faham badan ay inooga baahan tahay iyo ahkaamta sharciga ay qaabka inuu la mucaamil lahayn inuu barano wax badan baa inaga qarsoon waynaan garanayn ahkaam ahli dhimma oo dhan ama saynu la qeybin lahayn qaabkii oo dhan baa la daraasayn wax badan baa maqan وين حسن الجوار هذو قال درس كلية شار كلية وطن ودتك مسلمين هتجي بدنو كم إذا يجي وتجي وجريه ذي لدجي ولد درس بيلا نقنيان إن قال لفتيني بقارنو إيمانيان أو ضمن المسلمين إيمانيان أو كل شاريان حسن الجوار كغفر معها محارم ما بتكون تقال ما معها مركو كل درسه وشار كلية هاي وإن سوى أكثر ولا نقطع وشارني ماذا يدرسني ماذا ويلا لسه ابن العمر ayaa maalin reerkiisa waxay qasheen neef ariya sala warinayo markaas wuxuu ku yiri hadaytum waxaadiyada ma u dirteen bijarina al-yahudi hadaytum bijarina al-yahudi ikana injaarka nahay reerka injaarka yuuda waxaadiya hadiyadii wax ma ka gaarsiiseen neefkana qalateen wax ma ka siiseen qaalu la ma yabeeydeen dumarkii carruurtii qaala ib'athu ilayhi minha neefka wax kamida u diray buu hadiyada wax ka sii jaarkan inay markii xadiidkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam alayhi xasuustay ma sala jibril yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu marka jaar haday kula darsaan oo jaar noqotaan waa in aad adigu u samaysaa ihsaan aad u samayso wax wala kala iibsan kara waxna wad ka iibin kartaa gaalkii waxna ka iibsanaya waxna wad ka iibsan kartaa oo maanta caalamka oo dhan dawanaga nu safrayna amba ku inuu safraa kitaab noqdaan amba majuusiyiin dabcaabada ha noqdaan amba mulxidiin kala ha noqdaan bay'i wax ka iibsiga waa uu banaan yahay nabiguna salawaatu ullaahi wasalaamu alayhi kaba iibsadayba ana nabi sallallahu alayhi wasallam ishtara ta'aman min yahuudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadid rasuulku wax buu ka iibsaday waliba ka sii qaatay rahmaadna wuu siiyay حتى حديث كلام وحده المام يا رسول صلوات الله وسلامه عليه سيدر عيسى الرحمن يهي إنه بنتي
laakiin mucaamalada aad la mucaamalayso aad la dhaqmayso ama wax ka iibsanayso ama wax ka iibinaysa waa in aanu shaygaasi ahaan shay shariicada islaamku cadaysay xaaraanimadiisa oo de ribo kula mucaamali maysid khamriga iibintiisa iyo ka iibsigiisa iyo u qaadidiisa waxa soo dhan waxaad kula mucaamalanayso ma aha laakiin wax iibinta iyo wax ka iibsiga waa lagu mucaamaloon karaa waxa loo xayno hayno dhanbadankoodu iyaga inooga yimaadaan heshiisna waad la geli kartaa oo magangeliyaad siin kartaa kula joogi karaan oo dawladda ku tafiisa la siinayo ay ku soo galayaan iyo wixii lamid waa rasuulka sallallahu wasallam alayhi kana ghulam yahudi يخدم النبي صلى الله عليه وسلم إن يرى يهودي رسولك وأذيك ترى فمرض وبكى يركي فأتاه يعوده وكان رسولك صلى الله عليه وسلم يسوق السودية المهي وكرير ويهودي ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا كسر رحمة ضيان حريسته وها كوري ودي بوجي مناي هذا أركي ما تناكم حدني ولي ودي هذا أركي سي أدق تحي إن اللي كرتو قف مسؤول سو بوقنا إياه قف يرى بكاري وأن ولي بالدين هين بالأج ولي بقى أن الدين هين ولي بقى أصل هنا كسر جد لبدن ويهودية فأتاه يعوده فقعد عند رأسه ولي رسولك صلى الله عليه وسلم المهي رمد حيسو فريست تفرق إيه يا موقت سودي حالدي سو رسولك إيه صلى الله عليه وسلم دعودنا رسولك كما تجين فقال له أسلم وكان رسولك يقول صلى الله عليه وسلم إسلام حالتك استقفك وقبل بندقيسا وقبل كرو هذان حالتك عسنانا حالتك غيرك أسلم المهي يرى به بأكفر إيه وأنا حنصنايا لأنه كبقنا يا والدك بأكتوب مرك رسولك يقول إسلام فنظر إلى أبيه وهو عنده أبيه وأهلي وأكتوبي وضينا الحمد لله من نقول من إسلام كمركا علمه كورجوك سدا فقال أطع أبا القاسم أطع أبا القاسم أبا القاسم أطيع بيقول أطيع أبا القاسم فأسلم هو إسلام وبد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إسلامي فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار إلهي بأمان له أردن الله كبت بهذه نار لا نار كبت بهذه مركا حديثكم حو دليل وياهي قفك هدو بكوضو ولو يدا نسكو دين بهاينا إنا تسود يسو حباس أنه حين تسيهاني دليل وياهين رسولك صلوات الله والسلام عليه إنه رحمة وها عالم كأردن سإلهي تلمامي سبحانه معاملاتك كلا شرعي وينو أقول هاي حق قال هذا مركز لأيبو الانتفاع بما عنده من علم وينو أقول هاي هذه علمي أحيان إنه يكون انتفاعنا إنه كبر إنه التكنولوجيا دي بد ومهم إنه كبر إنه هذا يتهاي من علو اختار نمو هذا يتهاي بيرس الزراعة غير كذا فرسمة إلا كبرت وسلوك وين برتويا وبرنايو إن المسلمين تكون أنفعوا لا دينتي سنة وشقاية الدليل وحوا رسول صلى الله عليه وسلم مركو هجرودي سيدا قرسودي أو بحيي مكة الساقة إيا أبو بكر وكو كريستين نينك رجل نينك دينتي مقادا إن مسلم ما أحين وهو على دين قريش مشركين قريش يدبو كمدها لكن كان يمحوها طليقان وكان خريتا طليقان بوها رسولك كريستي صلوات الله والسلام عليه مسؤول إنك نقولك كلا يقانا يقولك لما ركروا إيا ميلها الضوية عارلك أضج إيه ماركتي بدين اللوقة هذه أنا دليل وحيوت هاي قفر سمايا قانا أبا أقول لي إن دليل شنكر إن ماركتي إجارة كرتو الشقالة سنكرتو مركا حافر بدن أي نوباهن هاي إن أي مصحنا إنما كان مركا لو معاملون إنه محابنان محاسب بنانين معنا قد يدني معنى هيدو للتعامل كان مكين أيوه قد يدي الولاء والبراء إنه قفوا كتناسلوه ويقفوا واحد وحريرين الساعة سيدو الله يقولوا سبحانه وتعالى والله وحرين هاي قف كان واحد وقفوا قانا يسا سيدو الله يقفوا هاي قف بقفوا قال لك كفوا وين تكفوا قاتوا وتكدركتوا معنا قد يدو إلى أن يتاس قد يدي الولاء والبراء وإيمانك قفوا كمل كمسلم كأه
haddana wixii mucaamalo ah dunyawiya ee mubaax ah nimanka waa lagula mucaamaloonaya. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم